warmadaxweynaha Addis Ababa aaday muxuu ka doonay ma ciidankii Ethiopia malaha maalmaha waxa socotay bu'aala la qabanaya la leeyahay ma ciidan oo u doontay bu'aale markaas aniyo ma ogi in lagu qabto wallahi ma ogiyaan dhahay Allah ya ka Allah hadhowdii soo waay warwar ma haysaa wiil maya warninkii Abiy Ahmed aha Nobel Prize la siiyo balaaya ku furantay hadda taa ciidan meel uu diri karo ma leh sidii gabadhii maaragtay maxay meeshii saasuujiye laga noqonayaa Nobelka marka guula soo hayatayo ciidan Ethiopia hadda soo duulaya ma jiro war intaan Ethiopia isku doona lahayn oo ciidan ajnabi aan isku doona lahayn oo midka noo jooga aan iska saari lahayn waxaan rabnaa kuwa noo jooga inaan iska saarno kuwa madaxweynayaasheena villada jooga kuwii soo maraa jooga askari Ugandaysa furaha villada hay oo ina waati Soomaaliyeed kuwaasaan rabnaa inaan iska saarno waxaan isaga saari karnaa Soomaalinimo iyo midnimo iyo isku tanaasul yaa maamulka madaxweyne farmaajo lagu dul qaadanaya oo waxa tacaddi dhacaya laga soo bilaabo kii qalbi dhagax lagu sameeyay kii aniga leegu fula kii baydhabo laga sameeyay kii hadda ugu dambeeyay madaxweynihii hore Sheekh Shariif lagu celiyay kuwa gobolada lagu hayo hal waxa dulqaadkeeda ku socdaa wuxuu ku socdaa xilkasnimo dadka siyaasadda ku jira iyo maxaa kale doorasho dhici doonto 4 sano dhamaanayse qoladan si tartiib ah ha noo dhaafaan hadday amalka doorashada soo xiraan marka oo isku dayaan inay awoodda kororsadaan dalka Soomaaliyeed dulqaadkii ay ku joogeen waa doorashada hadduu kaas xirmo ogaada iridii rajada iyo iridii nabadda Soomaaliya dawladda ayada soo xirtay waxa la wixii mas'uuliyad ka dhacaan halkaas ayada بحبك يا حمار ولعلمك يا حمار انا بزعل ولما حد يقول لك يا حمار بحبك يا حمار ولعلمك يا حمار انا بزعل ولما حد يقول لك يا حمار يا عم الحمير كلهم عليا الطرب عمهم يا عم الكبير كلهم عليا الضرب عمهم لابس حزام بدل اللجام وترقص بلدي وروبا وعليك رقصة انما ايه وبتفطر شاي وباتيه وعليك رقصة انما ايه وبتفطر شاي وباتيه وعايز كريم بدل البرسيم ومدارس تكتب رقصة بحبك يا حمار ولعلمك يا حمار انا بزعل ولما حد يقول لك يا حمار waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waxaan nasiib darro ah kuwa aan ka hadlayay ee na dayacay shalay si غير mas'uulnimo ah u sahladay badeen inay baxdo ama dana gaar ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan qofka Soomaali oo aqli leh oo dadnimo ay ku jirtaa waa gara kara waxa ka dhalan kara dadka noocaas mas'uuliyadooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan dadka Soomaaliyeed ha foojignaadaan indhooda kor nin nacayb maaha nin jeclaysi maaha laakiin waxaan leenahay dadka mas'uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminayo ha laga fiirsado gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego malafyadoodii hore dib ha loo eego meesha ay ka yimideen waxa ay soo mareen iyo mas'uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib ha loo eego